waxaan maanta isugu imanay tababar loogu talagalay in wacyiga iyo garaadka haweenka lagu kobciyo. haweenku waa kala badh bulshada, badhka kalena iyagaa dhala, iyagaana dhaqaaleeya. marka in haweenka aqoontooda iyo kartidooda iyo dhaqaalahooga la kobciyay waxay muhiim u tahay in noloshii bulshadu ay isbedesho. maxaa yeelay gaar ahaan bulshadeena Soomaaliyeed noloshooda hadda waxaa gacanta ku haya haweenka. waxaa la yiraahdaa nolosha labay kala tahay marka miyi la joogo iyo marka magaalo la kala joogo. adduunyada miyiga marka la joogo waxaa asalka ah adayga iyo legdanka nolosha iyo cadow la dagaalanka iyo dagaalka iyo waxyaabahan geedo la gooyo oo maartay reer loo saantagiyo waa nolosha qalafsan. taa marka doorka ragga ayaa halka hore soo maraa la yiraahdaa. ragga xaq hor maadaama dagaal la galayo magaalo, laakiin hadafka nolosha magaaladu waxa weeyaan waa raaxo iyo qurux ba asalka ah la yiraahdaa. magaaladu waxa loo tartamayo qofku inuu nolol raaxo la gaadho, quruxna guri qurux badan iyo reer qurux badan iyo nolol qurux badan ku noolaado. raaxo iyo quruxna dumar wax ku gaarsiiyay muu jira ma jiro. saadirta waxa la dhamaa marka soo magaalo nolosha magaalanimada la galo doorka dumarka kor soo baxa ka raguna hoos buu dhaadhaca. maxay hadafka nolosha magaalada laga leeyahay raaxo iyo qurux. raaxo iyo quruxna haween laguma gaarsiiyo. aw man yunashu fil khalqi aw man yunashu fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin bilayl. waa abuurkeega fitriga ilaahay uu ku abuuray baa ah inay haweenku qurux ka fikiraan, inay raaxo ka fikiraan. saadirta marka magaalo la joogo haweenka ayaa marka ka dambaysa kor u baqacaya, raguna inta ciidanka ku biirtamaan intooda kale halka dambe fadhiisanayaan. maxay la shaqadii ay qabanayeen way baabaaday. saas darteed bay imka haweenku ay qoysaska inta badan la wareegayaan. haddaba anagoo doorka garanayna fikirka haddaan aamino waxay ka dhigan tahay magaalada si fiican baan wax uga qaban karnaa. miyigana waxa la leeyahay waxaa jira laba kala jirta: qixid caafimaad qabta iyo tu aan caafimaad qabin baa jira. dadka miyigu hadday soo guuraan magaalada yimaadaan garaadkii miyiga oo bay la soo degayaan magaalada. magaaladu markaa waxay noqonaysaa dad shaad magaalo xidhan, laakiin garaadka iyo software-ka ku jira uu yahay miyi. idan noloshii miyiga lama bedeli karo. laakiin hadda waxa la leeyahay taa bedelkeega hal la sameeyo oo dadku intay magaaloobaan miyiga ha tagaan oo nolosha miyiga hal la magaaleeyo oo miyigu magaalo ha noqdo. dadku laakiin asal ha la magaaloobaa la leeyahay. maxay la magaalowga nolosha ku taal dadku markay degaan garaad degan buu ku fikirayaa, noloshiisa ayuuna horumar ku fikirayaa. nabiyuna yuusufna ilaahay muxuu lahaa markuu walaalihi wuxuu sheegay wajaakum min albadwi buu miyiga ilaahay niga keenay umahadnaqa. marka saas iyadoo laga duulayo fahanka iyagoo laga duulayo maanta halkan waxaad ku qaadanaysiin laba buug baad ku qaadanaysiin. buugga koobaad waxa weeyaan waa xidhmada isbedelka horumarinta haweenka xoolo dhaqatada iyo xoolo dhaqata beeraleyda oo 16 package baad ku qaadanaysiin. halkanna waxa weeyaan majuulka tababarka qaab dhismeedka ciidanka horumarinta haweenka iyo xoolo dhaqata beeraleyda. marka in haweenka dhaqaalahooga si loo dhisi lahaa, si nabadgelyada looga dhisi lahaa, horumarka sida looga dhisi lahaa, caafimaadka sida looga dhisi lahaa, beeraleyda sida looga dhisi lahaa, wax soo saarka ay haystaan si uu noqon wax soo saar iyagu dhexdooda iskaashatooyin la isku xiri lahaa, ay noqdaan dad waxa ay soo saaraan una hayn af iyo gacan una noqonay, oo noqdo dad iyaguna isku filaada bulshadana noloshooda bedeli kara. qaabkaas aad u noqon lahaydeen ayuu tababarku ku saabsan yahay. marka anaguna kelmadaha kooban inaan ila wadaagaan jeclaaday waxaan niga kala baxaya tababarayaasha iyo xafiiska haweenka. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.